hosting free ma aha waa la iibsadaa dabcan muuqaalka aad ku baran doontaa qaabka la iibsado waxaan kuu tusi doonaa isla muuqaalkan dhexdiisa haddaba ila baro oo kooraska markaa si fiican aynu wada fahamno insha allah soona gala telegram channelkeena waxaad kasoo geli kartaa yani telegramkeena descriptionka muuqaalka adaan sidoo kale qaybta commentigana waa aan kusoo gelin doonaa koorsadan waxyaabahan isticmaalayo dhanna waxaan kusoo dhigi doonaa descriptionka telegramka yaala ayaan soo gelin doonaa telegramkeena soo gal insha allah waxaan samayn doonaa saa idin sheegay challenge ah waan ku wada tartami doonaa insha allah qof walba markaa yani waxa uu internet ka samayn doono koorsadan markaa dhamaysto insha allah haddana saaxiibayaal kooraska ila daawo insha allah okay saaxiibayaal hadda waxa aynu wada samaysan doonaa website-ka aynu wada samaysan doonaa sidaan hore idinkugu soo sheegay website-ka markaad samaysanaysid waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano domain waxa weeyaan baan idhi magaca website-kaaga sidoo kale hostingna waxaan idhi waa daatada ama storage-ka haddii aato muuqaalo aad soo dhigto website-kaaga ku suuq geynaysid kambaniyo iyo haddii aato images iyo haddii aato articles daatada uu qaadaya website-kaaga weeyaan waana tan ugu muhiimsan oo ah inaad marka hore aad iska eegto oo aad daawato shirkad la garanayo okay saa arkaysaan hadda website-kan yani google haddaa gelisid best laptops wax kusoo baxaya website aad iyo aad u fara badan kuwaasoo yani xayeysiinaya laptopyo kala duwan oo marka ay Amazon ka soo qaateen shirkado badan haddii muuqaalkan hore saan kuusoo sheegay haddii muuqaalkan aad gaarsiisaan 2000 likes aad dhaafsisaan insha Allah waxa balan ah inaan yani siro badan aan marka idin la wadaago okay balantaasna waxa weeyaan idinka xaqiina weeyaan okay saa arkaysaan hore idin kuusoo sheegay waxaan idiri waa inaad doorataa hosting aad iyo aad u ballaaran waa inaad doorataa haddaba waxaan idin soo diyaariyay shirkad aad iyo aad u wanaagsan taasoo ku siinaysa hosting unlimited ah يعني website كاغو بحسويميو عليس مدريميو waxa marka yani soo gelin kartaa wax walba ay soo gelin kartaa yani shirkadaha wax sameeyo hosting 20 GB wax yar bay ku siinayaan laakiin tan waa unlimited weeyaan saa arkaysaan muuqaalkan description kiisa waa kana shirkadan weeyaan shirkadan ba ku dhufanaysaa saa arkayso dream hosting ayaad ku dhufanaysaa waad klik garaynaysaa linkigan waxaas dhan muuqaalka ayaa ku dhex baran doonaa insha Allah website aad iyo aad ku quality badan oo la tartamo website-yada arkayso dunida maanta la joogo waa kala shaqaysanaya imise post ayaad website-kaaga ku qori kartaa هكول ولين قابك بوستيغ لو قري قابك ارتكل لو قري انا كنت سنه ان شاء الله مانتا waxa weeye waqti waxa jooga AI baa la isticmaalaa tools ku sahlaya in marka yani post quality la qorto waliba aan galno kun ugu horeeyo marka Google la geliyo best laptop ama yani laptop HP ama laptop Apple oo kale labadaas kale qofku ku iibsanaysa garanaya macnaha tusaalahan kale Google waxa weeyaan qofku marka waxa ku dhigan oo raadinaya ayuu marka geliya okay hadaba inaan ku dhaaraan sa arkayso linkiga muuqaalka soo dhufo description kan ku soo dhufo linkiga markaas aad u klik gareyso click aad siiso waxa ku geyn doonaa halkan ayuu keeni doonaa saaxiib la arkayso okay arkayso web hosting arkayso purpose waxna ku soo baxaya waxaad ku dhufanaysaa halkan ay qoran tahay get started aad ku dhufanaysaa halkaas aad click siinaysaa okay inta markaa click siiso waxa ku soo baxaysa halkan ayaa ku soo baxaysa يعني وحي كلين sharing iyo dream press iyo VPS adu waxa dooranaysaa kan sharing ayaa dooranaysaa laakiin starter tan iska ilaali ha dooran waxa doorataa share sababtoo ah ku siinayso yani data unlimited oo website kaaga marka yani awood loo marka storage awood loo kuma siinayso marka waxa doorataa mid kan ay ku qoran tahay sharing wixii kala duwan yihiin starter kuwa yani starter share biyihiin share starter iyo share unlimited way share starter ha dooran mar waxa doortaa share unlimited oo madowgan unlimited kan dooro click see okay saa arkayso waxaanu siinayaa yani data complete ayuu siinayaa saa arkayso waa unlimited email baan diri karnaa soo kale arkayso yani storage kiisu waxa weeyaan waa fast weeyaan saa arkayso wuxuu ku siinayaa run ahaantii unlimited traffic ku siinayaa traffic wax ku soo booqanaya aan xad lahayn baa marka yani ku soo booqan kara saa arkayso okay hadaba saaxiibayaal marka inta doorato waxaan ku yiri click waxa siinaysaa marka koobaad halkan linkiga aad ku soo dhufanaysaa description-ka aad ku soo dhufanaysaa marka aad ku soo dhufato linkiga description muuqaalka ku soo dhigi doona halkan buu keenayaa kadib waxaad ku dhufanaysaa halkan get started baad kali garanaysaa okay marka kali garayso labadan baa ku soo baxaya share starter iyo share unlimited baad dooranaysaa okay inta kadib waxaad sameynaysaa hoos baad u baxaysaa hoos sign up halka qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa okay saaxiibayaal inta kadib waxaad sameynaysaa halkan register domain ay qoran tahay aad kali garanaysaa inta kadib halkan yani sa arkayso aniga magac domainkaaga magac u baxso aniga saaxiibayaal aniga waxa baxsaday yasirreviews.com baa raacinaya .com raaci ayaa professional mar walba okay saakaysa yasirreviews waxa weeyaan waa dib u eegis wuxuu ku sameeyaa qofkani yani marka alaabaha ama productyada kadibna search halkan ay search ku qoran tahay aan kali garanaya tusaalahan kala hadaan dhaho yani laptop review oo kala halka laptop review ku qoro arkaysa dadkan oo dhan review ayay ku wada sameynayaan laptop iyagoo markaa ka raadinaya commission okay inta kadib sa arkayso waa u banaan yahay congress is available
kadibna add for 00 ayaad gashanaysaa add baad dhahaysaa. Okay, intaa kadib saaxiibayaal mastercard iyo visa card iyo paypal waa lagu iibsadaa. mastercard iyo visa card iyo paypal haddaad paypal rabto halkan ku dhufanaysaa ku iibsanaysaa. haddaad mastercard haysatana halkan ama visa card waxaas halkaas baad gashanaysaa. Okay saaxiibayaal sidaa arkaysaan yani kaarkii waan gashtay. yani kaarkan dabcan waa kaar for example weeyaan. halkan mastercard ka gashanaysaa. haddaad paypal haysatana halkan paypalka baad kali garanaysaa. paypalka ku iibsanaysaa. okay, halkan waxaad gashanaysaa kaarkaaga xilligu dhacayo. يعني بيش ودعية سمت ودعية هل كان كارك نمبر كي سدم بآيات كشان يساسا أركيسو. أوكي وحصوهرتي بيلين إنفورميشن. بيلين إنفورميشن وحكي لنا يسا يعني مجالات أتوقع مجال هل كان وضن كأتوقع مجال عيسى هل كان يعني قبل كمجالات هل كان مجالات مجالات كشان يسا. أنت كدي هل كان وحصوهرتي زيب كور كبصوهرتي وحس كشان يسا سؤالان أو كلا يعني وحن قلي لبا بقول صدن وحن وحن مسك قلي هالكاس أظن نمبر لح نمبر كوكو بنقلي إبرة يحلا سؤالان. okay inta kadib waxaa soo hartay halkan ay xarfahan baa gashanaysaa mar inay kaa khaldamaan way dhici kartaa inay isaga khaldamin baa rajeynaya ay okay saaxiib yaal way saxeen kadib waxaan dhahayaa add credit card yani hadda waxaan ku tusinayay kaar aan yani saxsanayn baan ku tusinayay yani qaabka kaarkayga ayaan soo saxanaya kadibna add credit card dhahay qofkii aan horey aan u aqoon yani wax loo yaqaano mastercard ama visa card saan ay u egyihiin yani waa kaar noocaas image sadaan tago yani waxa laga soo qaataa shirkadaha kaarka angeliyo dheeraa waa kana kaarka dheer angeliyay waa yani angeliyay waa halkan arkayso kaarka numberkiisa dheer angeliyay waa kan halkaas ku yaala sa arkayso xilligu dhacayna waa tana yani xilligu dhacayna dabcan xilligu dhacayna waa tana iyo saddexda numberna waxay ku yaalaan kaarka gadaashiisa marka gadaal kaarka loo rogo. okay waxaan rajaynayaa kaarka inaan fahamtay kaarkayga saxsanaya kadibna add credit card sababtoo kaarkaaga cidnaha iskala wadaagin lacagta saanoo kale lagaaga dirsanaya haddii aad cid kale la wadaagtid. okay saas ayaa markaa hoos aynu buuxin doonaa saas aynu ku iibsanay markaa wordpress aynu tegi doonaa. okay kaarkaygaan soo saxsanaya. okay saaxiibayaal kaarkii waan soo saxday intaa kadib halkan waxaan gashanayaa xarfihii dabcan way iga khaldameen. okay set BIB way saxeen kadibna waxaad dhahaysaa add credit card kaarka markaad yani aad ku xiranayso waa inay lacag kugu jirtaa lacagta yani lagu iibsanayo oo gaaraysa $35.4 ama $36 sa arkayso yani kaarkii waan ku xirtay intaa kadib macluumaadkan ayaa buuxin doonaa dabcan sa arkayso lacagtu waxa weeyaan $38 weeyaan buuxsan doonaa. saaxiibayaal sa arkaysaan account setup ayaan joogaa macluumaadkii waa buuxiyay dabcan sa arkayso halkan gmailkayga ayaan geliyay dabcan. okay halkanna magacayga ayaan geliyay dabcan sa arkayso halkan kala hadaan ku daro yani Yaasir Mohamud. okay sa arkayso sidaas u daa. okay halkanna magacayga magaca aabahaydan geliyay. okay halkan phone numberka ay gashanaysaa. okay intaa kadib waxaad dhahaysaa yani tan click iska qaad si $35.4 kugu noqoto iska soo hubi macluumaadka si fiican iska gmailkaaga waliba si fiican iska hubi. intaa kadib saaxiibayaal waxaad dhahaysaa submit order dhahaysaa. okay saaxiibayaal sa arkayso waad iibsatay lacagtiina waad bixisay ayuu ku leeyahay. intaa kadib halkan password baa u samaysanaysaa password ayaad u samaysanaysaa. okay remember baan dhahayaa passwordkii baan u samaystay dabcan sa arkayso kadibna continue ayaan dhahayaa to control panelka ayuu geenayaa sidaas ayaan markaa domain hostingkii ku iibsaday. hambalyo saaxiibayaal waan iibsaday domain hostingkii dabcan sa arkayso waxyaabana iska cancel gareynayaa start tutorial ayaan kusii dhufanayaa. intaa kadib waxaad samaynaysaa let's get started ayaa dhahaysaa waxaan ayuu markaa ku wadaa saasuu kugu dhammaynayaa. okay saaxiibayaal sa arkaysaan waa ay buuxsantay dabcan. saaxiibayaal intaa kadib waxa aad samaynaysaa waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay website ayaad ku dhufanaysaa kadibna manage website aad kali garanaysaa. intaa kadib waxaad samaynaysaa halkan ay manage ku qoran tahay aad kali garanaysaa. okay hoos baad u baxaysaa wax kale maana samayn website aynu tagnay kadibna manage website aynu kali garaynay kadibna halkan aynu kala kasii siinay hoos baad u baxaysaa halkan ay ku qoran tahay wordpress ayaad ku install garanaysaa install ayaad dhahaysaa wordpress aynu website kan geysanaynaa. intaa kadib yani halkan hoose ayaad u baxaysaa halkan sa arkayso ayaa next siinaysaa halka domainkaaga ka dooranaysaa sa arkayso domainkaaga ayaa dooranaysaa halkan next ayaad dhahaysaa kadibna sa arkayso yani waxaad samaynaysaa aduu kan nan ayaad dooranaysaa kor baad u baxaysaa next baad dhahaysaa. intaa kadib kuwan waa iska iska wada qaadaysaa yani ma doonayno install baad dhahaysaa. okay saaxiibayaal sa arkaysaa waa u wadaa 100 marka ay gaarto ayuu markaa yani kugu shumayaa website-kaaga wordpress-ka ah. sida arkaysaan waa way dhamaaday dabcan isagoo aan marmarka qaarkood 100 aan ku garanay ku dhamaan karaa si aan u tijaabino click ayaan siinaynaa dabcan waanu eegaynaa markaa sa arkayso wordpress-ka ayuu geenay balse password iyo waxaad arkaysaan inuu username aan ku galna uusan lahayn dabcan. okay maxaan samaynaynaa markaa yani waxaan tegaynaa gmailka aynu tegaynaa
warqadahan ayaa naloo soo diray horta warqadan do not reply ay qorto immediate verification waad klik garanaysaa marka yani waa verify garanaysaa domainka click here to verify ayaa dhahaysaa sa arkaysaan waa verify garanay maxaan sameynaynaa waan ku laabanaynaa dabcan intaa kadib yani gmailka ayaan haddana ku laabanaynaa gmailka inbox baa tegaynaa sa arkayso halkan waxaa ku qoran dealing host successful installing WordPress waad klik garanaysaa halkan waxaa lagu siinayaa yani emailka aad ku geli lahayd yani ayaa lagu siinayaa iyo password cusub samayso waxaa lagu siinayaa username-kaaga WordPress-ka sa arkayso username ayaa ku qoran hilaawin sidoo kale waxaa lagu siinayaa click here to link password cusub samayso linkigan ayaan ku dhufanaynaa password cusub ayaan samaysanaynaa username-kina laakiin waana la siiyay halkan oo kale waxaan samaysanaynaa waxaan ka dhiganayaa 2 Yasir 123 aad u fudud baan ka dhigtay dabcan okay save baa dhahaysaa soo kale themeka markaa isticmaalaya in soo diyaariyey passwordkaas ayaa isticmaali doontaa okay intaa kadib waxaan dhahaynaa login ayaan dhahaynaa laakiin see loo login garayaa website-kaaga WordPress-ka haddii aadan aqoon waxaa dhahaysaa Yasir dabcan waxaa dhahaysaa domain-kaaga qoraysaa Yasir reviews.com / baa raacinaysaa yani domain-kaaga.com waa raacsan /wp-admin wp waxaa laga soo gaabshay WordPress-admin oo ah qofka maamulkiisa haya wp-admin baa raacinaysaa domain-kaaga / baana udhexsanaysaa kadibna enter baa dhahaysaa dabcan okay sa arkayso yani waxaa noo soo baxay loginkii WordPress-ka intaa kadib username-kina la siiyay dabcan waa kana halkan uu ku qoran yahay passwordka annagaaba garanaynay passwordkayga annagaa samaysanay oo gashanaynaa inta kadib halkana passwordkii aan soo samaystay wuxuu ahaa Yasir 123 okay inta kadib login baan dhahaynaa okay saaxiibayaal hambalyo sa arkaysaan WordPress-kuna keenay dismiss baan siinaynaa inta kadib waxaan sameynaynaa waxyaabahan oo dhan aan iska bixinaynaa screenshot halkaas tigaysaa screenshot ugu horeysa halkan aan shaqada ku bilaabay screenshot waxaa iska saaraysaa adgalan sidoo kale iska dayso quick draft iska saar WordPress eventsna iska saar okay inta kadib saade okay inta kadib waxaan sameynayaa sa arkaysaan website-ka hadaynu booqano oo visit site aynu ku dhufano click aynu siino waxaynu geenayaa sa arkaysaan halkan aynu geenayaa dabcan website-keena maaha website qurux badan habaysan ma aha dabcan sa arkayso balse website-keena waxaynu ka dhigan doonaa website aad iyo aad u habaysan oo diyaarsan oo aad iyo aad u qurux badan aynu ka dhigan doonaa dabcan sa arkayso website-kan oo kale aynu ka dhiganaynaa website aad iyo aad u qurux badan waa website marka yani aynu website-keena ka dhigan doono sa arkayso waa website aad iyo aad u diyaarsan run ahaantii waxa weeyaan waqti badan aynu ku bixiyey sa arkayso anuu ku dhisay markaa Elementor Pro wax loo yaqaano balse adiga waxaan kuusi doonaa theme-kana caadi ayaan kugu soo gelaya waa kuusoo diyaariyey waxaan kuusoo dhigi doonaa Telegram-ka yani ayaan kuusoo dhigi doonaa Telegram-kan haddaadan ku jirin fadlan waxaad kasoo gashaa description-ka muuqaalkan ahaada daawanayso dabcan kasoo gal sa arkayso Telegram-keena qaybta description-ka waa u yaalaa dabcan hoos hadoo baxdo waa kana Telegram-keena yani Telegram-keena waa kana sa arkayso soo kale WhatsApp-kan waa WhatsApp-kaan leeyahay weeyaan Telegram-keena waa kan halkan kasoo gelaysaa kadib Telegram-keena markaa soo gasho oo sidoo kale qaybta comment-gana waa soo geliyaa qaybta comment-gana waan soo geliyaa oo markaa yani muuqaalkan ma soo gelin qaybta comment-ga laakiin description-ka saarka soo gal Telegram-keena ayaa ku qoran okay Telegram-keena dabcan markaad click siiso linkiga halkan ayuu keeni doonaa halkan waxaan kusoo gelin doonaa wax loo yaqaano yani fileska oo kusi doonaa balse marka hore aan bal website-ka hagaajisano oo qurxisano okay dashboard-kan tagnay waxaan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay posts ayaan tegaynaa postiga markaa ku jira aynu ka delete garaynaa hello wall ayaa ku jirta dabcan sa arkayso hello wall waanu ka delete garaynaynaa south delete garayso waxaad ku dhufanaysaa trash halkay qoran tahay okay kadibna halkan trash baad kusii dooranaysaa saad iskaga sii delete garayso delete permanently okay pages baad tegaysaa sa arkayso website-keena waxa ku jira page view sample page oo kale ayaa ku jira markaasi aad iskaga delete garayso waxaa samaynaysaa hal mar ayaa title click ayuu wada siinaysaa xabadna waad leeyahay kartaa hal mar baad click siinaysaa trash baad dhigi kartaa okay bal screen iska wada delete garaya rabaa hal mar baan click wada siiyay kadibna halkan baan click siinaya move baan dhahayaa apply aan dhahayaa move trash apply okay inta kadib trash baan dhahayaa kadib yani hal mar baan click garaynayaa hal mar baan bulk action baan ku dhufanayaa delete ayaan dhahayaa apply hal mar ayay markaa iga wada baxayaan saaxiibaal inta kadib waxaan tegayaa posts iyo pages waan soo delete garayay waxaan tegayaa halka qoran tahay plugins-ka waa function isku sahlaya markaa website-kaaga inay service dheeraad ku soo daraan waan wada isticmaali doonaa dabcan okay hal mar kuwan delete bay leeyihiin dabcan hal mar baan click garaynayaa kadibna halkan baan ku dhufanayaa kadibna waxaan kasii dooranayaa delete ayaan dhahayaa apply ayaan dhahayaa kadibna okay baan dhahayaa sidaas ayaa markaa website-kayga iiga baxeen dabcan okay haddaan hal mar refresh garayo dabcan saaxiibayaal sa arkaysaan yani qoraaladii iyo page kalkan yaala sample page wixii way ka baxeen marka website-keena saan uga dhigno website qurux badan oo aad iyo u diyaarsan sida website-kan oo kale yani aan uga dhigno waa inaan markaan soo gashtaa wax loo yaqaano theme
website-ka markaas aan usoo gashano theme-kan aan usoo gashano ama yani inoo saalay inaan ku promote garayno products-keena ama alaabaheena waxaan u baahanahay waxaan soo gashanay wax loo yaqaano plugin ay tagaysaa kadibna wax ku dhufanaysaa halkan add new plugin ay qoran tahay inta kadib markaa sameyso waxaad ku dhufanaysaa halkan upload aad ku dhufanaysaa kadibna choose file plugin-kan waxaan kusoo dhigi doonaa Telegram-ka saa arkayso oo ku jira yani Telegram-kan waxaa kasoo galaysaa description-ka muuqaalka hadda daawanayso ayaad kasoo galaysaa description-kiisa saa arkayso waa kaasa description-ka muuqaalkan saa Telegram-ka waa kan okay يعني طبعا ساكسو بلاغينكا تليجرام-keena waa kana Telegram-keena marka saa soo gasho halkan aad ku dhufanaysaa magaca ku dhufanaysaa inta kadib hoos baad u baxaysaa halkan ay ku qortaan files aad ku dhufanaysaa sababtoo waa file okay inta kadib all in one WP migration طبعا saa arkayso all in one WP migration waa kana طبعا saa arkayso xawiyaan kana soo degsanaysaa marka waxaad tagaysaa plugin kadibna add new plugin baad dhahaysaa kadibna upload halkan choose file baad ku dhufanaysaa طبعا okay saa arkaysaan plugin-ka ayaan soo gashtay computer-kayga sababtoo ayuu ii yaalay dabcan install baan dhahanayaa okay activate plugin sababtoo yani waxaan kugu sameeyay website-kan si markaa waqti ugu bixin ayaa markaa si degdeg aad ugu samaysato yani waxyaabo ka bedeli doonaa laakiin website-kan hore ayaan kugu soo diyaariyay Elementor ayaan kusoo dhisnay inta kadib waxaad dhahaysaa all in one WP migration halkan ayuu kuu soo galay import halka qoranta aad kali garanaysaa import from ayaad dhahaysaa file ayaad dhahaysaa soo kale Yasir reviews kan isagana file-kan kale waxaan ku soo gelin doonaa Telegram-keena qaybta files-ka aad kala soo degi doontaan saaxiibayaal haddana waxaan sugaynaa ilaa iyo 100 inta uu ka gaaray okay saaxiibayaal saa arkaysaan waa uu wareegtay dabcan waa uu dhamaaday 100% kadib waxaan siinayn doonaa halkan ay qoran tahay proceed ayaan click siinaynaa okay website-kayga ku talagal marka hore sidan ayuu ahaa design-kiisa laakiin haddana seeyahay website-kayga wow saa arkaysaan hal mar ayaan markaa website-kii sidaa ku samaystay insha Allah yani theme-ka iyo markaa yani waxa ku qoran Yasir reviews iyo plugin-ka all in one WP migration labada waxaan idin soo geliyay Telegram-ka gaar ahaan qaybtiisa files-ka ayaan idin soo geliyay halkan kala deg okay inta kadib maxaan sameeyaa website-kayga markaa waxaan u samaysanayaa password ayaan u samaysanayaa haddaba website-kayga password ayaan u samaysanayaa soo kale Gmail-kana aniga ayaa awood isku soo wareejinay maadaama Gmail-kayga wada ku jiro website-ka saa markaa yani isku soo wareejiyo waxaad samaynaysaa domain-kaaga ayaa qoraysaa Google-ka ku qoraysaa Yasir saarkayso Yasir reviews saarkayso inta kadib halkan meeshan slash-ta ayaa waxa raacinaysaa WP minus admin saan hore ku soo sheegay marka aad login garaynayso yani website-ka WordPress-ka inta kadib saaxiibayaal sidan ayuu inoo soo saarayaa waxaan qorayaa yasirreviews.com/wp-admin yani username baa gashanaysaa username-ka aad gashanaysa waxa uu noqon doonaa Yasir marketer marka aan theme-ka ku shubno fadlan ifaham marka aan theme-ka ku shubno password-kaaga hore aad u samaysatay ma lahaan doono sababtoo ah website-ka anaa soo sameeyay yani theme ahaan kan anaa soo sameeyay okay inta kadib yani copy baan ka soo qaaday dabcan okay inta kadib halkan waxa gashanaysaa yani sa arkayso password-kana waxaad ka dhigaysaa sidan ay ka dhigaysaa halkan waxa gashanaysaa Yasir marketer halkan waxa gashanaysaa password-kana waxa ka dhigaysaa 2@Yasir 123 inta kadib halkan ayaad remember me baa dhahaysaa kadibna log in ay dhahaysaa okay yani website-kaaga markuu design-ka yani yeesho design-kan markuu yeesho website-kaaga password-kiisa uu isbedelaya dabcan okay saarkiisa dashboard-ku ii keenay marka ugu horeysa maxaan sameynayaa waxa aan tagayaa yani username-kan ku soo galayo iyo password-ka ayaan iska saxayaa soo kale website-kaygana Gmail-ka ayaan ka wareejinayaa settings halkii qoranta ay tagaysaa settings ay tagaysaa kadibna settings baad ku dhufanaysaa dabcan saa arkayso waxaan ku dhuftay settings general okay sidan ayuu soo saaray marka Gmail-kan waan ka bedelayaa Gmail-kan waan ka bedelayaa meesha qoranta administrator email ayaan imaanayaa okay saa arkayso administrator email ayaan imaanayaa okay maxaan sameynayaa marka Gmail-kayga ayaan tagayaa copy baan soo dhahanayaa dabcan Gmail-kayga ayaan copy soo dhahday dabcan general baan ku soo laabtay halkan Gmail-kayga ayaan gashanayaa okay saa arkayso halkan ay qoran tahay site yani site title meesha site title ay qoran tahay website-kaaga magaciisa domain-kaaga magaciisa Yasir reviews arkayso halkan ayaa ku soo qormaysaa aad ku dhufanaysaa inta kadib halkan administrator waa inaad ka doorato halkan administrator waa inay ku tahay inta kadib halkan ayaad save changes baa dhahaysaa ama enter baa dhahaysaa saaxiibayaal saa arkaysaan halkan wuxuu ku yiri Gmail-ka ayaan waxa kugu diraynaa yani warqad baan kugu diraynaa WordPress ka socota Gmail-kaaga tagaysaa Gmail-ka warqadda waxa la hadaa halkan ka weydid waxaad ka eegtaa halkii qoranta spam-ka ka eeg ama promotion-ka ama spam-ka saa arkayso halkan ayay soo gashay spam okay waa kali gareeyay WordPress saa arkayso halkan spam ayay ku galaysaa ama inbox-ka ama yani promotion-ka saa arkayso WordPress Yasir admin miyaa rabtaa inaad ka dhigtid awoodda yani halkan aad ka wareejisid Gmail-kan yes baan dhahayaa halkan linkigaas baan kusoo dhufanayaa dabcan saa arkayso awoodda anay u wareegtay Gmail-ka ay ku wareegtay intaas waa intaas oo markaa website-ka WordPress-keena imika Gmail-kiisa adiga ayaa xukuma okay inta kadib waxa sameynaysaa halkan ay qoran tahay
users تجيس halkan user ay ku qoranta تجيس sababtoo website ku waxa lagu galay yaasir marketer ayaa lagu soo galay password maxay galay laba at yaasir 1 2 3 soma user baa tageysa kadibna add new user baa dhahaysa oo marka yani adiga ayaa user gaar ah oo website kaaga aad ku soo gashay